Kusoo dhawaad channelka Mahatma Family waxaad ka helaysaa video walbaad u baahan tahay rukumo saad mar walba u hesho video cusub iyo new update daawasho wacan videogan. Assalaamu calaykum. Dunidan kala horumartay aadan la soconin meel ay wax kala marayaan oo aad nooshahay xaafida ku dhex jirto siina doonaysad guul iyo horumar inaad gaarto. Waan ogolahay inaad gaarto guul, laakiin meesha taagan tahay iyo waxaad doonaysad farqi weyn ayaa u dhexeeya. Aroortii ayaa soo toosay ayadoo ka tagtay salaadii subax. Meel aad wax ka bilowdo ma lahan, wax ma baratid, ma shaqaysid. Waxaad ku dhex jirtaa da'dii ahayd 18 jir ilaa 25 jir. Wax kuuma qorshaysna. Wax aad hadda kuu qorshaysan yahay ma lahan. Dadaalo ma haysid. Waxbarasho waa lagu kari waayay, waalidkaaga way kugu kari waayeen. Waxaad dadaalo hadda ku jirto ma lahan. Waayo salaada marmar ayaa tukataa. Xirfad ma haysid. Xooggaada ma cuntid. Waqtigaada oo dhan waxaad ku dhumisaa oo aad ku beertaraysaa aflaanta xun sukaansi oo meel saarneen hadda lagu guuriyaa lagu dhaho biil uma haysid sababtoo ah wax shaqo ah hadda haysid maba jirto. Hadda kawa aad ma gadan kartid, kawa oo ka dhamaadeen ma gadan kartid. Hooyo iyo aabba ayaa mar walba kurbaysaa. Kadib waxaad doonaysaa inaad gaarto guul. Number 1 ma shaqaysid. Number 2 xirfad ma haysid. Number 3 wax aad ku turuntahay qorshooyin ah aad haysid male. Kaliya taa xirfad samey oo aad ku bedeli kartid noloshaada oo wax badan aad meel sare aad ku gaari kartid. Laakiin hata mar walba leedahay guul ayaan rabaa, guul inaan gaaraan rabaa, guul ayaan doonayaa. Xirfadna ma haye labadaas isma keenayso. Guus waxaa lagu gaari karaa ficil uu sameeyay asaagaada. Ficil uu sameeyay asaagaada aad samayso ayaa lagu gaari karaa maan inaad u aragto qofkaas wuxuu sameynayo isla weyno maan inaad arintaas u fiirso. Waa karaagina hadalkan ta dib u aragtay laakiin mar walba waxay guusha ku imaadaa waxaa qof ka aragtay ficil inaad samayso saas inaad guul ku gaarto maahane. Sidoo kale aad guul ku gaari kartidna waa jiraan laakiin talaabooyinka ugu fudud oo ku sheegaya inaad ku gaari karto guul oo aad u weyn aad ka soo kabsato baahida inaad raadiso MB aad mobilka ku shubi lahayd oo 3 maalin 4 maalin aad raadinaysid kaliya 20 sent aad mobil ku shubi lahayd ama $5 ama $10 aad mobil ku shubi lahayd aad raadinaysid oo ku beerdareynaysid qof aadan isqabin oo qof aadan waxba ahayn inaad ku beerdareyso waxaa kaaga roon in aad waqtigaada ku aruursato meel aad shaqaysato qoftaas aad runta u sheegto aad tiraahdo waxaan ka rabaa mustaqbal inaad awlaad dhalno in aan ka mari dhalno waxyaalaha isoo marayaan ama waxyaalaha shayida 20kii waxyaalahaas isoo marayaan inaan aruursado beri ka maalin adag kugu guursado oo ilma aan dhalno. Laakiin haddaada micno daro oo qofta maalin walbo wax siinaysay oo ku daldalaysay bir waxa imaanayo qof maalin walba lacagtiisa meel ku aruursanayay qofkaas imaanayo tartiib waa la soo doonana qof maanta u jeedo lacag haasto oo naag u baahan qof oo beri ka maalin shaqay bilaawi rabo looma sugayo. Marka waxaa ku leeyahay in aad astaagto aad ka kacdo fadhiga aad bilowdo hatta wax yar ahaado wax leh inaad barto oo aad raadiso meelaha oo wax lagu barto hata awoodin inaad lacag wax ku barto meelal waxaa jiraan oo free ah oo wax lagu barto sida dombosyada waxa lagu bartaa Englishka kaligi maahan waxa lagu sii bartaa xirfada oo samaynta guriga nashqadeynta waxa lagu bartaa computer noocyadooda kala duwan. Marka inaad raadiso ayaa kuu fiican maahan inaad dhulka isdhigto maahan wax ma baran karay maahan inaad dhahdo carabkaaga culusahay raadi waa kugu talina inaad raadiso meel wax lagu barto hatta qof raadi oo wax ku bari karo mobilka aad haysato smartphone aad ka baran kartaa YouTube in aad ku qorto sidee wax u bartaa intaad ku qori lahayd arrimahaas waxaad kaaga fiican English inaad ku qorto YouTube-ka
barashada Ingiriiska luqadda ayadoo lagu fasirayo Soomaaliga waad ka helaysaa. Waa luqad maahan mid oo la dhahayo waa lacala maahan, waa luqad inta aad ku jirto 18 jir ama 25 jir. Waa meesha aad ku bedeli lahayd noloshaada. Maahan inaad soo kacdo subaxdii 4 saac jifka aad ka soo kacdo oo wax cunto haddii aad soo socoto duhurkii la gaaray ama mar waa kaa faktay mar waa dugatay 9 saac waa jiifatay 10 saac ayaa soo kacday galabtii 11 saac la gaaray meelaha kubadda lagu ciyaaro ayaa aaday feeshashaa u tagtay waa soo daysatay maqribkii la gaaray waa soo baxday meelaha oo dadka buuxana tagtay oo meel u qorshaysan waa soo dhex fadhiisatay 3 saac ka soo tagtay xaafadda maanta waa jiifatay goorma bedeli rabtaa noloshaada taa maalin walba saas ku jirto habeenkii maalintii qorshe wax aad leedahay meel oo kuu qorshaysan male xifrad ma leedid waxaad taqaanid male qof haddii maanta kuu imaado oo kula hadlo uma jawaabi kartid. Marka waxaa ku leeyahay walaalkeyga ama walaashay noloshaada wax ka bedel. Haddii maanta oo hataa wax yar aad taqaanid waxaa laga yaabaa beri kamaa inay ku anfici doonto. Laakiin hataa wax barinin oo maalinta aad gaarto 30 ilaa meelahaas waxaa lagu dari doonaa gabar qaraabada yihiin maadaama aad daaday aad keensanin xooggaada ku keensan maadaama gabar aad jeceshahay waxay u baahan tahay inaad beri kamaa inaad maareysid balse haddii 30 aad gaartay ma shaqaynaynin waxaad ku dhumisay waqtigaada oo dhan waxaad ku lumisay meel maalayacni ah. Waxaa ku bilaabanaysa inaad ku shaqayso meelaha aan ku habbooneyn inaad ku shaqayso sida inaad bulkeeti samayso iyo arrimahaas iyo waxyaalahaas iyo fundi inaad noqoto adoo u jeedi inaad baran karto xirfad aad ku shaqaysan karto oo lagu hogaaminayo oo aad hogaamin ka noqon lahayd adoo u jeedo haddaad raadisid meel aadan ku habbooneyn intaas aad iyo aad khasaaro iyo faa'iido daro u tahay. Marka waxaa ku leeyahay fadhiga ka kac inta aad nooshahay wax ka bedel noloshaada iyo waqtiga aad haysato aad ku khasaarin meel aan ku habbooneyn. Waxaa idin la hadlayo waa walaalkiina Mahat Yacquub oo idinku dhiirigelinaya inaad gaarto noloshaada wax ka bedesho. Waxaan kaa codsanayaa video inuu ku soo gaaro oo hadduu ku soo gaaro subscribe ii saarto siina share gareyso walaalahana sii gaarsiiso si ay ayagana wax ugu bedelaan noloshooda si ay wax ugu bedelaan ayaan ka darteed ugu gaarsiiyo ugu share gareey gambalaalkana furo. Waxaan idin rajeynaa inaad gashaan jano guul wacan ayaa idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan.